ururka qareenada Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si weyn u cabaariyay xariga lagula kacay garyaqaan Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo ka mid ah bahda qareenada Soomaaliland iyagoona sheegay in xariga garyaqaankaasi yahay mid aan sharciga waafaqsanayn sidoo kale waxa ciidamada booliiska Soomaaliland ku eedeeyeen in aanay haba yaraatee dadka ay xirxirayaan aanay u adeegsan hab sharciga waafaqsan waxaana sheegeen in dadkaasi ay ku xirxiraan hab aan sharciga ku habboonayn ficilo غير الشرعية أو أي بريهن بوليسكا جبرت السومالان أي سكع عادستين وكسافسن حركة تذكر وحى شلي صبحي درس وحنمدي لقوا حري إرباط كهرجيسة قرين عبد الرحمن علي محمد وكتر صور قرين السومالان قرين كواحد بوليسكو إيديين وأي كقبتين باستولات إنه لقى عليه إرباط باستولات إرباط كلا قريب باستولات ده نكو قرين بوها كرسور وهنشري وأن قرن هي بدون تشقيه مسؤولة ماها دمبيه شرعنا ده وهستي ويسكول الأول هديب اللي يسكول الأول هوبك ومال الله قال أما أنا الشرع بوهسن حرق عقابات كذا لنا يا ولا يقانا وحنا تلمام يا حركة ممنوع عدة هوبك فضود حار نمبر 39 2010 لما أنا كمان كرقفك إلى لقيه هلا أمر أو قلاشة محكمة أو دولة لمركز دمجي سوس مني سيدا وقبا قطب كلاباتنات حار نمبر 39 2010 قرينك والله حري بوليسك إلا حد وحي وحي شكي وأنا كشكي سنة وحي باستول دوستي وانين مسؤول أو قرينا أو دور سنان له قرينك حسانات بولي لما حري كرو إلى الله جو قبطة إنه فرح كل شيء ردم بكبدن صدق سنوات حسانات قرينك واحد الماما يا حار نمبر 30 2004 قطب كلاباتنات أيات ما حسانات قرينك حرق قرينك وحلا صومر يا الله ودسر يا وقلانشو قد درس خد بحنتها يا عن شحمرين قرينا ذا جبرت سومالان لكن بوليس يعد لك ما قام كران بس كمان حرق كران هدي أنا فرها كل شيء ندم بكبر صدق سنوات وحنولانا هي بوليس كوي كنت عدين شرع جانو يكون كفين عد كستو كو قفتا شرع وحلاد هاي إن لقى أبال مريو قفك اسميين صلقينا تدخل يكون عبنيان أنت سكون المشكلة ده بوليسك واحد شفته إن أنا كل رقمي واحد لا شرعي كمان توتلي قضى بالله ما يجوا مد عقابية مد كارم مد ترام الله ما يجوا قفك والله قبطاهم سيد حوالها بين حبس قال جيني خاص كشريه ما أنت الدرن والجيني هادون حلون أنت اللي حبل الله هيو دبون كوي اللي حبل الله قفك اللي هي وحبس كحرناه محاله هي هذا سويدين سامجته dhacdadana ma aha dhacdo cusub oo dhowr jeer hore dhacday waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka booliiska in sharciga loo soo noqdo oo la dabaqo xeerarka waddanka sidan lagu shaqayn kari maayo haddaan xeerarka waddanka la dabaqin lagu shaqayn kari maayo sidan xariga lagula kacay qareen Cabdiraxmaan sida ay jideeyeen shuruucda dalka gaar ahaan xeer number 30 2004 qareenadu waxay leeyihiin xasaanad ka duwan shicibka lama xiri kara qareen haddii aanu dambi gacanta kula jirin waxa loo yaqaan flagreto oo markaa gacanta ku haynin qareenadu xarigooda de procedure sharci baa loo marayaa oo ah in ogolaansho la weydiisto guddida ruqsad bixinta iyo anshaxmarinta qareenada ee xeerku sheegayo ama jideynayo booliisku tallaabadaasi way baalmareen qareenka way ku tacadiyeen tan oo keliyana maaha waa wax maalin la dhaca tacadiga ay booliisku u geystaan bulshada Soomaaliland qareenada iyo dadyo kala duwan waxay caqabad weyn ka taagantayba gelitaankii qareenka ee uu galayay goobaha saldhigyada marka wakaaladaha ka soo qaadanayo dadyo xidhan
dastuurka Soomaaliland wuxuu qof walba siiyay xaq ah inuu helo legal representative ama wakiil sharci ama qareen difaaca oo dastuurka Soomaaliland baa taa u damaanad qaaday gaar ahaan qodobkiisa 8 taliyaha airportka ee maalinka Cabdiraxmaan xidhay anaa hore ugu tagay anoo wakaalo doonaya waan tusay qodobkii sharci taliye ku xigeenkiisu wuu ogolaaday wuxuu xaq baad u leedahay laakiin taliyuhu wuu diiday hoggaanka biliiskan la hadlay anigu oo ogeysiyay markii ay taasi dhacday dhigi jalan waxaad moodaa inuu isagu sharciga ka sareeyo waxaan leenahay markaa oo u soo jeedinaynaa booliska Soomaaliland iyo hay'adaha fulinta inay dabaqaan oo shuruucdani aanay noqon tuul meesha noo yaal garyaqaan Cabdiraxmaan ee lagu sababeeyay bastoolad uu si kama ah ula galay isagoo ilowsan airportka sida ay qareenadii hore sheegeen in la iskaraameeyo wanaagsan in sharciga la ilaaliyo wanaagsan qareenadu iyaga mas'uulka ah mas'ala kasta oo sharciya oo dalkan la isku qabto iyaga kala saaraya marjicii loo soo noqonayay way haddii xukuumad isqabato haddii baarlamaan isqabto haddii golayaal isqabtaan haddii xisbiyadu isqabtaan wax kasta mas'ala kasta oo lagu murmo annaga nolol yimaada waanu gaabsanaa saxaafadda isma soo bandhigno waxaanu eegaynaa danta qaranka booliska waxa la xeerkii booliska ee qaban lahaa tacadiyada ay dadka kula kacayaan waa la dhaqan galiyay wali al'aan wal hor taagan shuruucdii wadanka loo dhaqan galiyay ee la ansixiyay ee madaxweyne dhaqan galiyay sababtii u suurtagal leedahay ee booliska lagu xisaabtooyo ilaahay de waxa weeye xeerkuuna qaarna qabta maaha qaarna iska awdo booliska waxa wali al'aan hor taagan yihiin sharcigii xeerka booliska qaban lahaa ayaa wali ay hor taagan yihiin marka runtii waxaan aad uga xunnahay xadhiga sharci darrada ah ee lagu kacay qareenka qareen Cabdiraxmaan Samad Jaamac Ahmed Absamad Gire telefishinka Ariel Hargeysa